أبو بكر الصديق رضي الله عنه دقيست ما أنت مغلى markii talada umada loo dhiibay nin ganacsaduha marka dharku iibin jiray alaabtii buu qaato marka suuq la tagayay Madiina marka Umar baa ka daba tago ku yiri xageed u socotaa wuxuu yiri dareerahaygii iyo ubadkaygii iyo caruurtaydii bay wada sugayeen waanu shaqo tagayaa markaasuu yiri shaqo adduunyadu haleeli meyside shaqadii taladii umada lagu dhiibay halka baad fadhiisanaysaa ciidamadaad kala diraysaa wufuuda ku imanaysaa istiqbaalaysaa dadka la dardaarmaysaa dadkaad kala xukumaysaa oo ciyaalkayga reerkayga ayaa ii biilinaya annaka baytul maalka wax yar ku noolaata kaaga qorayne halka fadhi baa lagu dhaw umada kala wad baa lagu yiri mas'uul baa tacadugu shaqa adduunya haleeli meyside ma bas soo dhigan Abu Bakar halka in shaqadan uu qabtay in lacag lagu siinay ma soo dhigan inagana idoortaay oo maxaa lagu dooran ma inuu dadka u shaqeeyo meesinu ciyaalkiisa u shaqeeyo madaxda zamankan maanta badankoodu waa caynkaas idoortaay xaga u socota waxuu rabaa inuu ciyaalkiisa isagu xoolaha umada u sallaan ka dhigto ku shaqeysto Allah ka cabsigii baa yaraaday dadnimadii baa hoos u socota Abu Bakar ma soo dhigan meesha lacag baa baytul maalka laga siino masaariif ku noqonaysa ma soo dhigan meesha Abu Bakar baytul maalka looga qoray xogaha masaariif afar xaasbu laha yareero kale oo badan maalintuu dhintay inankiisii Cabdurrahmaan ibn Abi Bakr radiyallahu anhuma ayaa isagoo lacag fara badan wada ayaa soo qaaday lacagtoo baytul maalku keenay khasnajigii umada marka baytul maalka u hayay furaha Cabdurrahmaan bin Auf wa taajirkii Madiina Allah raali ka noqday ayaa marka ku yiri war waa maxay lacagtan adeero aab baa igula dardaarmo yiri waxantii waa adduunyo dhulka baan ka tagon anigu aan leeyahay dhulka iibi lacagta kolka ka soo baxda labadii sano iyo dhowrkii bilood ee talada umada aan hayay baytul maalka masaariifta ka qaadanay inta bay noqoto waan qortay halka igaga celi buu ku yiri halka warama dadkaas Umar baa loo geeyay radiyallahu anhu qabrigii Abu Bakar intuu dul fadhiistay buu ooyay markaasuu yiri Abu Bakarow madaxda adiga ka dambeysay talada umada qabani doonta wallahi waa daalisay buu waa daalisay yani maqaam waxa noo istaagtay aan la soo gaari karay war islaamku madaxda noocaas buu soo saaray madax ilaahay taqaana oo aakhirada taqaana oo khidmada shacabkooga taqaano islaamku soo saaray